howlka baarlamaanka Soomaaliya maanta waxaa hortagay xildhibaanada madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud markii uu kulanka furmay madaxweynaha howlka uu soo galay gudoomiye Jawaari waxa uu qaatay hadal kooban oo uu ku soo dhaweynayay madaxweynaha kaasoo madaxweynaha uu ku sharaxay sharciyada iyo shaqooyinka horyaala baarlamaanka Soomaaliya oo tilmaamay inay yihiin kuwa aad u adag waxa intaa kadib hadal qaatay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ku dheeraaday ka hadalka xaaladda guud ee dalka khudbadu uu jeediyay waxa uu ku soo hadal qaaday dhibaatooyinka iyo baahiyaha dalka jira waxa sabab u ah taasoo uu ku tilmaamay inay tahay wadatashi iyo dulqaad la'aan dadka ka dhaxeeya culaysyada saaran baahida dadkeena oo qabo oo ka jawaabayna awgeed yaan ku soconaynaa inaan dulqaad u yeelano marka aan wada tashano war waxaan waa naga maqan yihiin hay'adee uga dhaqanaa inta aan ka helayno kalsooni abuur dheerihan u baahanahay inaan iskalsooni gelino isdhageysano dulqaadano carada xanaaqa kalmadaha adag warka xanafta leh fiiqa marna nama saacidayaan waxbana nagu soo kordhinayaan cabsida waa sidoo kale aydan haddaan maanta oo dhan ka cabsan oo aan iraado baarlamaankii 10 xildhibaana xagga ku shoori hadii oo talow maxay soo wadaan balaayada soo wadaan waa maxaa haddaan dhigto oon cabsi meel aan la fariis waa uun de meeshaas aan joogina kalsoonina isku qabno dawladnimo naga dhaxayso mas'uuliyada naga dhaxayso dadka Soomaaliyeed iyo hay'adaha dawladdu hay'ad walba hay'adda kale waa inay ku kalsoon inaan wax la ogolaano inta suurtagal ah dadka ugu badan ee suurtagal talada inay ka qayb galaan waxna isla ogolaadaan inta ugu badan hadii la wax la isla ogolaan waayo hadda sayelna waxbaan isla ogolaan weynay aan isii qiblayno iska dhimano ma aha madaxweynaha Soomaaliya ayaa sidoo kale soo hadal qaaday arrimaha higsiga Soomaaliya waxa uu tilmaamay in shirkii dhawaan la soo gabagabeeyay lagu go'aamiyay in go'aan kasta oo ay gaaraan madaxda siyaasadda Soomaaliya sharci ahaantiisa looga dambeyn doono baarlamaanka Soomaaliya iyagana ay leeyihiin go'aanka ugu dambeeya higsiga 2016 iyo mashruuci muxuu ahay maalin wada baarlamaanka federaalka ah waxaan rabaa inaan marqaati u qabsado gudoomiyaha baarlamaanka oo maanta hortiina fadhiya iyo gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka oo hadda aan nala joogin naga maqan waa fadhiyeen meeshii go'aanka lagu gaaray tala kasta oo la soo gaara baarlamaanka la keenaa si ay sharciyad u yeelato waa la isku qabsaday waa laga dooday dadkii baaba taladii loo geeyo Soomaaliya hadashay maxaa baarlamaanka loogu soo celinayaa meel dheer ay dooda soo martay markii dambe go'aan cada lagu gaaray wax kasta oo la rabo in loogu gudbo mandateeka dambe in baarlamaanka si sharciyad ay u yeelato oo waxaan sameeynaynaa oo wada tashi ay ku timiday si ay sharciyad u heshahay waa in baarlamaanka la geeyaa oo laga shaqeeyaa maalin cada la isku raacay hadda wali laga ma noqon laakiin waxaan aan aad iyo aad xogaa walwal ijlisay xildhibaano badan aad uga walwalsan arintaas inaan arkay cid baarlamaanka dhinaciisa wada inta ka furata mari kartaa ma jirto xildhibaanada waxaa rabaa kalsoonidaas inay qabaan anagu aan soo qaabeynay oo xukuumadda ay soo qaabeysay ay u aragtay maanta wixii Soomaaliya u shaqeyn karay haday intay soo qaado baarlamaanka hor keento baarlamaanku uu diido hadda mas'uuliyadda markaas baarlamaanka qaadanayo wixii kale oo noo shaqeyn lahaa asiga laga rabaa oo la isku raaci lahaa la isku ayidi lahaa la isku dabageli lahaa sidaas baarlamaanku raalli ku yahay leeyahay hal yeelan sida baarlamaanku raalli ku yahay isagoo hadalkiisii wata madaxweynaha Soomaaliya waxa uu xusay in dalka halka dhibaatada ugu weyn ee ka jirta ay tahay siyaasadnimo iyadoo aan siyaasad midaysan la helina dalka uusan ka bixin dhibaato sida uu leeyahay madaxweynuhu Soomaaliya wax kasta kala adduun waa noo qaban kartaa hal waxa jir oo noo sameyn karin Soomaaliyana 25 sano la soo dhaafay halkaas waxay u dhintay siyaasadda waay nalooma sameyn karo siyaasadda annaga la jirtaa haddaan 20 sano kale 30 sano kale si qalqaloonaanayno iyo haddaan toosino cid adduunyada korkeeda saaran oo siyaasadda noo hagaajin karto oo noo sameyn kartaa waxa kaliya ee aan isku haysano waa siyaasadda wax walbana waxay subject u yihiin siyaasaddaas amniyaan la arkayn horumar dhaqaale la gaaray kaalmada caalamiga oo adduunyada diyaar noola tahanan la helay dadkeena karaamo iyo sharaftoodii aanay dib u soo noqonin haddaanan siyaasadda ka heshinin inteena gurigan ku jirta iyo inta naga midka ah maanta naga maqanay nala joogo siyaasadda nalooma sameyn karo waa inaan annaga sameynaa kuma sameyn karno wixii aan ku soo jiri jirnay iyo sidii aan u soo sameyn jirnay waayihii la soo dhaafay uma sameyn karno waa soo tijaabinay waa u sameyn weynay siyaasad reer hebel ay leeyihiin ma sameyn karno siyaasad koox gaar oo dadka Soomaaliyeed ka tirsan midaba gaar leh ama si gaar maxaa u taala ma sameyn karno siyaasad Soomaaliyeed oo dhan ka wada dhaxaysa siyaasadda Soomaaliya inay hagaagto qof noogu maqan ma leh
ugu dambeyntii madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in muhiim ay tahay in la helo sharciga lagu dhisayo maxkamadda dastuuriga taasoo noqonaysa mid go'aanka ugu dambeeya loogu laabto haddii uu muran dhaco. sharciga lagu dhisayo maxkamadda dastuuriga waa muhiim dalka iyo dadka iyo dastuurka iyo wax dhan ay muhiim u tahay isqabqabsi badan qof walba sidoo doono oo dastuurka u sharaxdo qof walba sidoo doono iyo meesha uu doono kala dhaco waxaasoo dhan ayaan kaga badbaadaynaa. siyaasadda dalka ma dhismi karto mana hagaagi karto haddii aanay jirin cid awood sharci u leh in ay turjunto dastuurka ay dhahdo maya saan ma ahna waa sidan oo kama dambays uu yahayna muxuu ahay hadalkeeda iyo go-aankeeda kama dambaysa. marka maxkamadda dastuuriga ayaduna waxay ka mid tahay waxyaabaha aad iyo aad muhiimka noogu ah.